kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada AB podcast oo aan kaga hadalno alaba barnaamijyada la xiriira taariikhaha hidaha iyo dhaqanka bulshada deegaankan ee Baraawe. dabcan barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah madasha fadhiya Abwaan Xasan Abu kaasoo aan wax badan ka wareysan doono arrimaha la xiriira taariikhaha qotaha dheer iyo dhaqanka deegaanka. Abwaan Xasan kusoo dhawow. aad iyo aad umahadsan tahay waan ku dhawahay waana salaamaya dhammaan inta nadaawanaysa insha Allah taala. waayahay Abwaan Xasan waxaan jeclahay su'aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo fadlan noo sharax taariikhda Baraawe iyo ama bulshada Barawaaniga ah iyo sida ay ku soo bilowdeen. haddii aan si wanaagsan maana si fiican aan u taariikhino taariikhda Baraawe horta magaaladan Baraawe waa magaalo qadiima waa magaalo jirtay ilaa waxa la sheegaa kun iyo wax ka badan oo sano laakiin asalkiisii hore meelaha dhul xeebeedka oo ay ka soo gashay xadaarada ilbahnimada meelaha diinta islaamka ay ku soo gaartay Baraawe waxa lagu tiriyaa dhulalka xeebaha waxa ugu koowaad dib noqonin kan ugu labaad ayuu noqonayaa degmada Baraawe diinta islaamka dadka keenay waxa lagu tilmaamay waa taariikh fog arab bay ka timid leeyahay dad ganacsato oo badan soo mari jiray marka taariikhda Baraawe waa dadka islaamka soo gaarsiiyay waa waayahay bal waa maxay marka asalka magaca Baraawe waa maxay asalka magaca Baraawe sida aan taariikhda horta taariikh qoran waa jira dad qoray taariikhyada Baraawe taariikh laakiin mid walbo buugiisa dad fiiriso waa kala duwan yahay laakiin magaca Baraawe dad badan aan ka wareystay ama aan la hadlay odayaal ama taariikhyana ama dad hore u soo joogi jiray waxay dhaheen Baraawe waa af Soomaali waa af Talyaani waa af Hebel laakiin asal ahaan Baraawe dadka deganay halkan miini ay u yaqaanaan miini ereyga Baraawe loo yaqaan asal ahaan dadka deegaanka u yaqaan miini ay u yaqaanaan Baraawe waxa la yiraahdaa gumeystaha markii uu yimid 1936 dadkiisa wanaaga iyo haqdoorka iyo xushmeynta iyo sida maana gabdhahoodii guriga intay fadhiistaan iyo naagahoodii nimankoodii adeegaya dhaqanka markuu fiiriyay Talyaaniga ayaa wuxuu dadkan waa bravo maana waa dad wanaagsan oo kale wanaagsan way wanaag un baa laga waday marka sida magaca Baraawe saas laakiin dadka iska lahay miini ayaa dhigay ka hor Talyaaniga intuusan magaca miini ayaa la dhigay miini ayaa magaalada marka miini macnaheedu waa maxay miini macnaheedu haddana la sii fasiro waxa waaye magaalada sidaan uma dhisnayn magaalada way koobneed darbina way lahayd laba albaabna midna waa laga soo garay midna waa laga baxay marka miini waxa loo yiri dadkii hal meel ay kulansatay hal meel ay ku kulmaan macna kulanka meel ay ku kulmeen suuqoodii iyo guryahoodii iyo wax walba iyo baashaalkoodii iyo wax walba waxay noqotay meel yaro kooban sida darteeda miini loo yiri marka sida darteeda miini loo qoray Soomaaliga muxuu yahay marka af Soomaali ahaan hadii loo bedelo hadii erey hadaan u fasirno mi waa aniga ni waa idinka horta waa inaad saas u fahantaa hadda miiniga haddaad tirahdid fasir mi waa aniga Baraawe ni waa idinka marka isku dar mi ni annaga iyo idinka waa naga dhaxeeyaa oo kale waa naga dhaxeeyaa waa maxay ugu duwan tahay marka magaalooyinka kale ee xeebaha Soomaaliya wax weyn ayay uga duwan tahay maxaa yeelay Baraawe dadka deganay Arab iyo Hindi iyo dad gabil cado maana meel walbo ka yimid waxay ahaayeen dad dhaqankooda gaar u ahaa iyaga hadii la fiiriyo Soomaaliya gabigiisa maana isku dhaqan ma ahayn sida misaal hada oo kale Baraawe gabdhaha hadii 9 sano gaaraan guriyaha lagu celi jiray dumarkuna maba adeegi jirin hadii ay danaysan raba habeenkii bixi jireen shaqo madowna way qaadan jireen mahramkoodii ninkoodii ama abahoodii hadana israaci jireen nimanka ayaa suuqa ka adeegi jiray wax walbo ganacsi ahaayna aan ka aheenin caanaha
oo hal naagada jirta ilaa taariikhda la ogyahay inta kale ganacsiga ha ugu yaraado cusbada iyo mooska iyo timirta niman baa gacanta ku haya meel laga heli jiray taas ma jirin Soomaaliya ha ahaado kalluun ha ahaado hilib ha ahaado galey yaanyo wax walba niman marka dhaqan u gooni ay ilaahayeen oo Soomaalida kale aan leenahay waya abwana aad baad u mahadsantahay markan waxaan rabaa inaan galno dhanka luqadda iyo hidaha afka inaan galno baahnahay waa maxay marka luqadaha ay ku hadlaan dadka Barawaaniga gaar ahaan afka Jimini waxaan mareenayaa waagii dambe 100 sano wixii ka soo sokeeyay umba Jimini la dhihi jiray laakiin wixii ka horeeyay Jimbalazi la dhihi jiray luqadda lagu hadli jiray Barawa Jimbalazi ayay ahayd marka luqadana hadii aysan la xafidin la qorin la ilaalinin luqaddu sidii aan ka hayno dadka saynisyada waaweyn iyo dadka culimada maaragtay wax soo bartay waxay raadaan luqaddu way dhuntaa way isbedeshaa way tagayurta oo maana marka Jimbalazi hadda markii ay doorsoontay oo ereyo kale ku soo dhaxdarsameen ayay waxay noqotay Jimini noqotay marka miinigi ayaa laga asal luqadiisa laga dhigay Jimini laakiin awal miini luqadana Jimbalazi la dhihi jiray luqadana Jimbalazi laakiin isbedelka wixii ka dambeeyay ay Jimini isbedeshay Jimini luqad Barawa lagu hadlo maal Barawa luqad Jimbalazi lagu hadli jiray haya marka waayadan dambe uu isbedelay oo Jimini la bedelay markuu isbedelay doorsoomay afsoomaaliga ka baxay Jimbalazi laga soo tagay marka waxa loo yimid wada kale qardada Jimini noqotay hadda laftiisa وهذا وسيل من روايه ما قانوا به لو بيحجون قلنا وحوي أفكا إيو لقنك وعلامة كلية أي كجري كران لو أقوى سنكرو هذه لبدس لوايو نقول كاسبوا لواينا يا مقت مركا هذا ما قانوا إن لدى بخبطوا يوباهن تايوا واي هو قرتي مركا إن أفكا Jimini وأيضا دمبالو بحيا يقولي واي هاي أفكا Jimbalazi بلشدان براو كوهادلان muxuu kaga duwan yahay luqadda kale ee Bantuga waad maasantahay Jimbalazi hadii aad dib u raacdo waxay aad 90% isku shabahan Bantuga maxaa yeelay aniga intaan ka baxay aniga kula hadlayo waxaan tagay Kamsuumo waxaan tagay meelahan dhulka Mashruuca degan waan ka tagay waxaan tagay ilaa jasiiradaha waxaan tagay ilaa iyo Mombasa waxaan arkay niman afka aniga aan ku hadlayo afka Barawaaniga luqadeedii bar haysta sida yani qayb ka haystaan ana ba arkay ba gabaraan arkay waxaan dhahay wiil reer Barawaan u joogay waxaan dhahay kan maanta munnu waa ku badan cusbada ku badan gabar Giriyaama waxay tiri munnu maxaa u taqaanin cusbo anagana cusba u naqaanaa yiri waa Giriyaama waxaan darad Kismaayo hal sano baran soo joogay mar dhawaan maadi nimankan Mashruuca waxaan ku arkay Kismaayo iyagu far badan aniga marka aadan u la sheekaystay door iyo mana waxaan isleeyahay afar meelood markii loo qaybiyo meel ahaanba waa afka Mashruuca marka af Bashtuunka ay af Balaziga aad u shibihi jiraan isleeyahay ka afka Balaziga hadda dil iraado dadka hadda jooga ha ku hadlaan lama ba awoodo ba in loo qoro ama loo dhigo ama la baro ma baran karaan waxa ka wada dadkan Bantuga qaasatan dadkan baajuunta xeebahaas kala jibooyin xeebaha ikuwan jasiiradaha degan aad bay isku dhawyiin xiriira ka dhaxeeya ha osbada mooska sorta zijeedahan anagana zijeedahan aanaha izibeedan mishaarida mataazeedan aniga soo arkay ma aha wax la iga sheekeen yahay Mombasa waxa looga hadlaa Swahiliga laakiin waxa jira qabiil bay iyaga u dhisayino qabiilka marka qabiilka anaga aan shabahno luqadeena ku dhex jirta Giriyaamaha anaga balaha soo ogaaday Giriyaamaha Mombasa markaad joogtid dhinaca xiga laam way ay ka soo degan ilaa laga yimaado xuduudda Soomaaliya marka sidaa darteedaan u maleynaya meesha naga soo gashay maxaa yeelay dadkii halkan degana waxay u safri jireen oo macnaha wax u raadsan jireen meel talle la yiraahdo oo laamo u dhow iyo laamo marka intaan aan ku sheegayo tallegaas iyo laamogaas ilaa iyo Kismaayo jasiiradiis Giriyaama deganaa marka abwaana waxaan rabaa hadda inaan ku weydiiyo taas marka aan ka soo gudubno dhinacaas luqadaha iyo dadka na daawanayo iyaguna dabcan waraysiyo kale dheeri ay ku maqli doonaan intaan kuma eka abwaan Xasan kaliya kuma eka shakhsiga dhaqanka iyo taariikhaha ku xidheer
aan stuudiyaha soo fadhiisanayno shakhsiyaad kala keeni doonaa iyaguna si markaas ay ugu waramaan bal abwaana aan kusoo noqdo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay muhiim u tahay marka in la ilaaliyo luqadda Jimbalazi waad mahadsantahay waa kuu sheegay luqadda Jimbalazi in la soo celiyo hadda waxaa laga dhahiri karaa Dada City iyo Sheekh Ismail Barawi iyo dadkaas hore maray waxay ka sameeyeen istenziyaal macnaha waxyaalo oo taxana ah oo ama lagu amaano awliyada ama lagu amaano dad oo mansab sare la hadii la yiraahdo maanta Barawi maxay u baahan tahay inay ilaaliyaan waa dhaqankooda hidahooda iyo luqadoodii taasna waa muhiim sidaad adigu sheegtay waa muhiim qoon dhan waxa lagu garan karaa waa intan hadii la waayo way baabaayaan marka waxa la rabaa dadka hadda nool ana haday daataan daba qabashay leeyihiin luqadii Jimbalazi waana dhaafi kan jimiiniga ay u bixiyeen waana dhaafaya dhaqankii tag marka in la sargaaro la soo la kaco la qoro hada social media la helo oo la sameeyo meel oo maartay dadka ku kulmaan dadka iskugu yimaadaan qoraal la sameeyo sida kale hadii sidaan ay ku sii socoto 20 sano 30 sano hadda ka baadi luqadda iyo dhaqanka waa la waynaa hadii la waayana waxaan halis ku jirnaa dadka yaga in la waayo marka si aan loo waayin luqadda oo aysan u noqonin mid dabar go'da maxaa lagu badbaadin karaa sidee loo badbaadin karaa waa muhiim in la badbaadiyo luqadan iyo dhaqankan laakiin sidee lagu badbaadin karaa hadii tiraadid maanta social media horta waana ka qarashna waa yar tahay laakiin wax weyn bay iyadu qabataa waa in odayaasha iyo ulumada iyo dadka aqoon-yahanka iyo maamulka iyo in la isku kaashado oo rag iyo dumarba in la isku kaashado la sameeyo meel horta dadku ay isugu yimaadaan sida sportiga iyo ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha Barawi waxay lahaan jirtay ciyaaro fara badan oo hidaha iyo dhaqana maanta habad fara lagu maayo tagi la soo celsho ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dhalinyarada sportiga meesha ku kulmaan luqadda in lagu xoojiyo filimaan iyo musalsalo iyo buugaag la qoro luqad kasta lagu qoro luqadan say ku badbaado toddobaadkan barnaamijka RB podcast waxaan kaga hadalnay taariikho kooban oo magaalada ama deegaanka iyo dadka la xiriira iyo waliba luqadan afka Barawaaniga ah oo imika dadka hadda jira jiilka cusub oo abwaanka inoo sheegay inay jimiin u bixiyeen laakiin waayo hore la oran jiray Jimbalazi todobaadyada soo socda taxanaha RB podcast ee dhaqanka iyo taariikhaha looga hadlo waxaanu diiradda ku saari doonaa dhaqanka guud iyo sida dadku hidahooda iyo dhaqankooda u ahaa hadii xalinta khilaafaadka ay ahayd iyo hadiiba ay ahayd arrimaha la xiriira guurka طبعا abwaan xasan aad baad u mahadsantahay أنا وكم هذين وانكم واد ما سنته وياي تحنا كلا يا إنه بلنا إن شاء الله